وحا حكومة الفدرالية intay jirtay ay ka shaqeysay heshiis taariikhda galay oo heshiiskii Baydhabo lagu gaaray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaaga khayraadka wadanka hada dastuurka baan kasta akhrisan qodobkiisa afraad waxa ku yaala ummada Soomaaliyeed waxay ka heshiin doontaa wadaaga qaybsiga khayraadkooda wadaaga ma aysan anaga waxa u bedelnay wadaaga khayraadkooda dowladda federaalka oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxay ku guuleysatay in dowlad goboleedyadii iyo gobolka Banaadir iyo xukuumadda federaalka ay gaaraan heshiis taariikhi ah oo ay dad badan oo Soomaaliyeed ama dad badan ajnabi aysan aaminsanayn in Soomaaliya heshiis gaari karto sharcigan batroolka aad hadda maanta aad u dabaaldagaysaan lagu taageeraysaan muddo yar ma aan haysanin waxaan soo bilownay bartamihii 2017 baarlamaanka gurigiisa shacabka waxaan ka hor akhriyay aniga laftayda Oktoobar 3keedii 2017 waa dareemi kartaan 2 sano iyo bar ayuu soo socday intaasna wuxuu socday si wasiir Jamaal u sheegay wada tashiyo iyo qof walba talada ku darso ugu dambeyntii 8 Febraayo 2020 madaxweynaha wuxuu nagu sharfay inuu san guuridiisa saddexaad ee muddadiisa xalhaynta ku aadiyo inuu saxiixo sharciga batroolka waxaan sameynay si aan ummadda adduunka ugu soo jeedino andaha Soomaaliya shir muhiim ah ku qabanay London oo aan ku soo bandhignay khayraadka Soomaaliya ay leedahay xirmooyinka Soomaaliya ay leedahay sidii Ibrahim meeshan ka sheegay ugu yaraan waxa Soomaaliya lagu sheegaa inay ku jirto saliid ama batrool macaan oo 30 bilyan oo barmiil ka badan 30 bilyan oo barmiil ka badan micnaheedu waxa waaye haddii maalintii Soomaaliya ay soo saarto milyan ama 2 milyan ama 3 milyan wuxuu soconayaa khayraadkaas muddo ku dhow 100 sano haddii batrool foostadii shidaalka Soomaaliya ay ka hesho ugu yaraan $10 ama $20 isku dhuftay ninka dhalinyarada waxa maanta laga ooman yahay ama laga gaajoon yahay ama dhalinyaro lidiin diidayahay waa khayraadkaas laga faa'iisto waxa dowladda federaalka ay ku guuleysatay inay hirgeliso heshiiskii Baydhabo waxaan dowladda ay go'aansatay heshiiskaas sida uu yahay in loo fuliyo iyadoo dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka ay ku heshiyeen loo fulinayo tusaale ahaan waxa dowladda u soo xarooday dhaqaale aad u yar oo ka soo xarooday kiro dhul ma kiradii shirkadii ay hore u kireysnaayeen oo dhan milyan iyo 700 waxa heshiiska ku qoran in dowladda ay qaadato 30% dowlad goboleedyada ay qaataan 70% dowlad goboleedyadii ku aadana dhaagagii kireysnaa dhammaantood way qaateen taas micnaheedu waxa waa dowladda federaalka waxa ka go'an in wixii lagu heshiiyay inay meel mariso waxaan intii aan xafiiska joognay xiriir wanaagsan sameeynay hay'adaha caalamiga ah ee daneeya nagala shaqeeya arrimaha shidaalka iyo macdanta sida bangiga adduunka bangiga Afrika hay'adda shidaalka ee Norway iyo wadamada aan saaxiibadana waxaan soo celinay heshiisyadii dowladda Soomaaliyeed ay hore u la gashay shirkadihii hore ee caalamiga sida Shell iyo Exxon oo hadda wada hadal noo socdo oo ay ku soo noqonayaan wadanka Soomaaliya si ay u maalgashtaan haddii labada shirkadood kaliya ay soo noqdaan micnaheedu waxa waa Soomaaliya way sarakacday wayna socotay insha Allah maxaa hor yaalla marka wasaaradda waxaa hor yaalla in aan ku qancino maalgashada dadka maalgashada caalamka inay Soomaaliya maalgashtaan sahal ma aha in Soomaaliya maanta maalgashado laakiin marka aan qancinayno saddex shay aan u sheegnaa waxaan u sheegnaa Soomaaliya data laga hayaa dhulkii la baaray badii loo baaray daatadeeda banaanka ay taala wadamo badan shirkadaha maalgashada ayaga baarta laakiin anaga maalgelinay oo baarnay datan ka hayna number 2 Soomaaliya waxay ku taalaa mowqac istiraatiiji ah walaashay batulu sheegtay oo aan adduunka laga helin waxaan u furanahay caalamka oo dhan meel laga xiran mal maanta waad ogtihiin caalamka meelo badan waxa ka bilowday amni darro maranka ugu muhiimsan oo shidaalka uu maro maanta waa isku haystaa Soomaaliya waxay noqonaysaa alternative ama بديل أدوك أو سؤال دون إن شاء الله تعالى وقولك الله قولك سدحات
oo muhiimka Soomaaliya waxay u furan tahay caalamka marka loo fiirsho haddii shidaal laga soo saaro badda soo walaalkii Ibrahim uu sheegay toos waxay u tahay kartaa adduunka oo noogu dhowdaha badda markii laga gudbo waddanka India oo boqolkiiba 80 baahidooda ay shidaal aan la daboolin marka saddexdaas amuurood waxay dhiirigelin u tahay shirkadaha caalamka inay maalgashtaan Soomaaliya halka challenge ma haysto ugu muhiimsan waa dhamaanteen especially dhalinyarada waa mid ka saaran waa kan amniga Soomaaliya waxay ku tiimbaraysan tahay ama ku calaamaysan tahay amni darro burcad badeed argagixiso intaas image-ka waxa bedeli kara dhalinyarada waa idinka waxyaalaha ugu muhiimsan oo haddii shidaal waddankan laga baaro la heli doono waxa ugu muhiimsan hawlo waaweyn sida Ibrahim uu sheegay oo bilaaban doona hawlaha kaabayaasha dhaqaalaha hawl abuurka amniga intaasoo dhan haddii shaqo bilaabato way bilaabanayaan waxaa ka muhiimsan intaas oo weliba aan ganacsatada u bishaaraynaya caawa inay bilaaban doonaan hawlo waaweyn ama logistic leh ama bangiye leh ama security leh intaasoo dhan way bilaaban doonaan insha Allah tacaala dhaqaalihina wuu kobci doonaa abuuritaan fursado shaqo way bilaaban doonaan insha Allah helitaan lacag qalaad oo waddanka waxa imaan doonta lacag qalaad aad badan tababaro joogta oo aqoonta kor loogu kordhay way badan doonaan fursado waaweyn oo ganacsi abuur waa bilaaban doonaan waxa la samayn doonaa shirkadda ugu muhiimsan waddanka uu yeelan doono oo ah shirkadda petroolka qaranka Soomaaliyeed waa tan la shaqayn doonta shirkadaha caalamiga Soomaaliya oo dhan maalgashan doonta waxayna noqon doontaa badiil ka shaqeeya in ay soo saarto shidaalka Soomaaliya mustaqbalka hadii la ilaha Soomaaliya waa frontier country waxay u baahan tahay in aad loogu sahantago loo suuq geeyo khayraadka Soomaaliya waxay u baahan yihiin cid kastoo inta fadhida inay qayb ka noqoto ay messenger u noqoto magac fiican ka sheegto in Soomaaliya ay diyaar u tahay business waxaan leenahay caalamka caawa waxaan leenahay Soomaaliya waxay u furan tahay in la maalgashto Soomaaliya is open for business caawa waxay ka tahay dhalinyarada marka waxaan rabaa hal shay dhalinyarada u sheego dib kastoo waddanka ka dhaco ama qarax ka dhaco ama siyaasi qayliyo oo wax ka sheego horumarka dawladda ay sameynayso ama sharcigan dhibaato uu soo maray laga daba qaylinayo waxay dib u dhac ku tahay mustaqbalka dhalinyarada wax kastoo dhibaato oo social media laga sheego ama qarax kastoo dhaco cidii dhagaha u taagto waxay dib ku tahay mustaqbalka dhalinyarada marka waxaan idin leeyahay mustaqbalkiinu wuxuu ku jiraa barnaamijkan aad weyn oo caawa aragteen inaan ka wada shaqeyno oo aan sahlanayn muddo qaadan doona laakiin haddaan isku duubanahay oo aan isku meel ka soo wada jeesano waqtiga dheer waan soo wada gaabin karnaa